caawa ciyaari doonaa kulamo ka tirsan tartanka UEFA Champions League ayadoo caawa ay jiraan kulamo waaweyn sida kulanka Bayern Munich iyo kulanka kooxda Barcelona iyo kulanka Ajax iyo kooxda Liverpool ayadoo la ogyahay kooxda Barcelona inay kulankeeda ugu dambeeyay guul soo gaartay ee ciyaartay tartanka UEFA Champions League halka kooxda Bayern Munich ayadana kulankeeda ugu dambeeyay guul soo gaartay ayaa caawa isku farsaari doonaan garoonka Allianz Arena ay ku ciyaarta kooxda Bayern Munich ayadoo caawa kulankaas la daawan doona 4 habeenimo sidoo kale kulanka kale ayaa dhacmari doona kooxaha Liverpool iyo kooxda Ajax ayadoo caawa asagana kulankaas uu ka dhici doona Stadia Anfield Road ayadoo ciyaartaas la daawan doona isla 4 habeenimo xidig Lewandowski ayaa noqon doona xidigii ka hor imaada kooxdiisii hore ee Bayern Munich sidoo kale xidiga Sadio Mane ayaa ka hor imaan doona isagoo matalaya kooxda Bayern Munich kooxda Barcelona markiisii ugu horeysay ayadoo kooxda Liverpool ciyaaryahanno dhow ay dhaawac uga maqan yihiin ayaa caawa la sheegayaa inuu ciyaarta seegi doono xidiga lagu magacaabo Robertson ayadoo uu dib u soo noqday xidigii khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda Liverpool ee Diego Alcantara